tuulada Hutayb ee dalka Yemen waa tuulada qura ay ku taala dunidan guudkeeda oo weligeedna wax roob aysan ka dayn tan oo ay ugu sii daran tahay in tuuladani aysan ahayn mid lama degaan oo dad fara badan ay ku nool yihiin balse taa beddelkeeda waxay ku taalaa buur sare oo jooggeedu uu ka sareeyo daruuraha tan kale oo la yaab kale ayaa waxa ay tahay inkastoo tuuladani ay jooggeedu uu gaarayo 3.2 mitir in ay ka sareyso oogada dhulka misna uu jawigeedu yahay mid diiran oo meel dhaxdhaxaada tuuladani Al Hutayb lagu magacaabo waxay ku taalaa gobolka Sanca ee Jabal Ahraz oo ah gobol buuraleeya oo u dhaxeeya Sanca iyo Al Hudayda tuulada Hutayb waxay ku dul dhisan tahay dhagxaan ciid cas ah dalxiisayaal fara badan ayaa halkaasi soo booqda si ay ugu raaxaystaan muuqaalka cajiibka ah ee dhulka aadka ugu sareeya halkaana waxa ku yaala guryo fara badan oo aad u qurux badan oo laga dhisay buurta dusheeda halka daruuraha ay hoos sabeynayaan waxa kale oo ku yaala qabriga wadaadka caanka ah ee lagu magacaabo Daawud Bohra Dari ayaa ku yaala tuuladan waxa kale oo ay leedahay dugsiyo iyo adeegyada kale ee kala duwan ee bulshada ay u baahan tahay tuuladani ayaa celcelis ahaan waxa la sheegaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 400 oo qofood